waxaan doonayaa inaan idinkala hadlo midnimada Soomaaliya waxa inagu badan eray la yiraahdo Somaliland iyo Soomaaliya erigaas ma garanayo waxa uu macnaynayo haddii si fiirsado inagu waxaan nahay Soomaali Soomaaliya Soomaali baale waxaan qubaa ka jooga Djibouti jooga ka jooga NFD ka jooga Ogaadeniya iyo ka jooga Soomaaliya inta ay Soomaaliyiin baan ugu qabaa Soomaaliya mid bay ahayd waana noqon doontaa mid inta midaysanina way midaysnaan doonaan inta ka maqanina way ku soo biiri doonaan idinka Ilaahay waxa jira waqooyi markaan ka hadlayo koonfur uun dhibaato dawlad la'aan iyo colaad mooyaane Soomaalimada way hayaan kama ay tagin inkastoo goobo la sameeyo laalaayo iyo ay wax socdaan haddana qofka tuu si aan ku noolaadaan raadinaya laakiin caalamka ku dhaganayo la yaab ma laha dawlad adag inoo imaanayso anigu taa kuga ceebsanahay dibku sababta ka taagan yahay dhinaca waqooyi وأنا أقول لك كل شيء نحن واحد يجيب قوي بعد إنك صراحة ما تقول كلام الشعب كثير قوي والشعب هذا هو نفسه والشعب وطنيين نوع كسبيين بقى عندي شرح أوضح ما كأوه رئيسة وقوي قبائل بعد كالصوماليات وشان قبيل بانو مالينيا شان تا قبيل كمدا قاركود مسؤولين تيسا ما ورنا يا شعب مسؤولين تيسا ayaa waxay wataan fikradan Soomaali goosi inaan goosanaan doonina Soomaali ka goosano haddaba waxay ku doodaan mas'uuliyintaasu ama ay dhalinyaradii iyagu ay metelayeen ay ku jahwareeyeen ama ku waaleen taariikh khaldan waxay yiraahdaan way isku darsadeen koonfur iyo waqooyi way isku darsadeen haddana waanu kala noqonay استعمال كبا كلا قوي قرمي كلا قوين وقوي كونفور استعمال كبا ده كلا قوي واستعمال كبا قوي من نسيو تبتنا وانو سكوتر سمي تبتنا وانو حتى وانو لنا قرنا وهذا بس سؤالي استعمال كبا وينو صوت علي قرن جيس دي تورنات وانو ملايين يا آخر كيسي أما رنتي سي ملهان واستعمال كبا صوت علي قرن جيس دي تورنات كهر أما قال لقيت الطبيعة طبنات سوماليا محيحيد وحلا ربع إن دتك بدعسية وحنا كنتها محي أمة السومالي بهانترين بحلوة إم بهانترين حلوة إس بهانترين دتكو قبائله أي يود كناين سوماليا تبعتنا استعمال باينوس وقالي استعمال كي مركو ينو يمد دتنا ويوقرض لعديان وراعي نقدين تبنا ويلا تكلمين ومتى الصوماليين دكانين دول كار الله ده نعينه لنا هذا دور كميلا دول كلا جوكوان وقلا من الفاعلين استعماركم إنك استوى كدلاين أما كلا تكلم عيو حتى لو قفك وطني جا يقفك وحكرت كا وحسين شري كرر كيسوسين شري هستريك كم قرّا كم الراعية ضمن لقطي كم أنا يوم because waxay ogyihiin inay waxba ahayn oo wadankood inta loogu yimid lagu dilay ay raali ku yihiin taariikhda kuma intan waxay history ku tareen hatta library-yaasha tagtaan history hatta baadhan kuwii la dagaalamayay baa ku qoran history ingiriisku wuxuu sameyn jiray anigu ma joogina waa taariikh waxaan idin ka hadlay dadku wada heli kartaan taariikhda qofku markuu baadi doono taariikhda uu helaya ingiriisku wuxuu sameyn jiray tuuga kii xada wax weyn ama bangi jabsada ama geel badan dhaca ama wax weyn la wareega maxkamadda la saaraa loo jiray hawlo ma la cafi jiray martaba hawlo midka boqol shilin iyo islaan yar guntigeed furtay caana xaday uu tooran jiray wuxuu jiray tuugna casar marka yani gablay hada qofkaas waxa weyn qaadanaya wuxuu og yahay inuu yahay qof yani qadee xamo weyn haya uu og yahay طريقة عمر يا واحد خلطان عليه. مركا هاو حنا نبين كودا إنه هل صومالي أيام لا ينوي يمد ولا دي لا تجعل بيسي يضل عقاب يوم أيام لا ينقايب صلي أفريقيا كي ولا له هنا ها واحد شراء سيدا توبيو كله يدو كميسي ولا جد أفريقيا والدولة كريم كميسي قليل دولة داس
waxay meesha inaga caawin lahayd oo odhan lahayd war Afrika maxaad u qaybsanaysaa noo daaya dadka yaga iyo dalka yaga waxay leedahay qaybta wax naga siiyo dalka yaga go'go'sanaysaa annagana waxna siiya inaanu gumaysanaanu doonaynaa sababta boqor baa ka taliyay boqorkuna sidiisa waa gumaysi maaha wax wanaagsan marka wadankeenu waa la kala qaybiyay inna Faransiiska loo dhiibay inna saddex meelood wax isku hayay Ingiriiska NFD iyo ogaadeen dhulka loo yaqaanay ku qoreen nabada Soomaaliya galbeed aan nidhaahno iyo Soomaaliya waqooyi Ingiriiska hayay Somali Code Français oo Djibouti markii xolooday loo bixiyayna Faransiiska ayaa haystay Soomaaliya koonfurna waxa haystay Talyaaniga sidaas aan loo kala qaybiyay marka waxa islaayay Ingiriiska iyo Talyaaniga islaayay waxay isku day qolada waxay isku dayday in iyadu Soomaaliya oo dhan wada qaadato ay ku tartameen dabeetana Soomaalida ayuu Ingiriisku la hadlo wuxuu ku yiri hadii aad maanta aniga ay taageertaan waxaan idin ballan qaadayaa idinkoo dhan inaan hal mid idinku sidii idinku celiyada ahaan jirteen nacaybay Soomaalidu u qabeen Ingiriiska bay maya ku yiraahdeen waxa soo fiicnay inay hayay yiraahdaan sababta maanta mid baynu ahaan lahayn sidee dhibaynu ku noqon lahayn marka halkaas wadayaasheena cadhahaysay talaadeed baa taladu yara seegtay isaguna cadhadii wuxuu sameeyay markuu inaga tagayay xitaa Soomaaliya waqooyi oo Somaliland uu soo la baxay British Somaliland protector uu la baxay lagu ka dhigay reserve area ayuu la haray markii uu maxay lahaayeen horta qayb wuxuu siiyay Ethiopia oo waa qayb saddeed dhaba iyo adari iyo dhulka aad maqasheen oo shishe reserve area markii dambe uu ka kacayay waqooyi ayuu ugu daray Ethiopianku ugu daray qoladan hadda aan wadankooda joognana wuxuu siiyay NFD siiyay sidaas iyo qaybiyay marka waxaan rabaa shalayto waxa erayga iga keenay shalayto waxaan daawanayay TV-ga Universal baan daawanayay niman mas'uuliyiin ah ayaa maxay dhahay ka hadlayay waxay yiraahdeen waxaan u soconaa Suudaan waqooyi koonfurta u kala go'aysa ayaan u soconaa sababtoo ah waxaanu nahay sida Suudaanta oo kale baanu nahay oo situation kaas oo kala haysta isku nooc baanu nahay marka adduunyadii hadda darajaanu leenahay awal hore waxay nagu qancin jireen lama rabo in xuduudihiisa isticmaalku dhigay in loo kala qaado lama rabo bal lagu qancin darajaanu leenahay waana loo aqoonsanaya okay waxaan rabaa dad dhalinyaro ah oo aan taariikhda fahansanayn ama caatifadi hayso laga dhaadhiciyay inay Soomaalida waxba isu ahayn ayaa jira oo waxa rumaysanaya oo la lugoynayo laba waxyaalo labadaba waan rabaa inaan u sheego shacabka waqooyi galbeed iyo togdheer shacabka degan ayaa rabaa inaan u sheego waa shacab dhiban oo shacab aad u wanaagsan waxaan rabaa inaan u sheego Suudaan waqooyigeeda iyo koonfurteeda iyo Soomaaliya oo waqooyi ah isku nooc maaha Soomaaliya waqooyiga Soomaaliya waa dad isku diina waa dad isku afa waa dad isku midaba waa dad isku dhula waa dad sinaba aan u kala socnayn laakiin se waxaynu nahay qabaa'ilo qolo ayaynu nahay oo reer faarax iyo reer qurac iyo reer jinac baynu kala nahay laakiin isku mid baynu nahay taasuna waa un deegaanka aynu degan qolo walbana meel bay degan tahay oo Ilaahay ku abuuray waan is ixtiraamnaa sidaynu ahaan jiray haddii meel roob ka da'o oo reer hebel degan yihiin reer hebelka kale uu soo guuro way soo dhaweeyaan way maxallaa hadda way soo dhaweyn jireen way sooriyayaan haddii qof socota ay timaado waa socota inoo timid oo isxilqaamaa xoolaha loo qala dad noocaas baynu nahay haddaba laba waxyaalood baan rabaa inaan u sheego Suudaanta waqooyiga iyo Suudaanta koonfur waa laba urumood oo kala gaar ah waxaana same situation ay wadaagaan haddii aynu runta eegno Ogaadeniya iyo Suudaantaas wadaaga isku nooc ah oo kuwaas raja gali karta hadda Soomaali galbeed aynu naqaano laakiinse adduunku uu yaqaano Ogaadeen uu yaqaano ayay isku nooc yihiin sababtoo ah ummada ayayna isku afahayn isku diinahayn isku dhaqanahayn ayaa haysto gumaysanaysa iyagana dad Afrikaan bay ahaayeen Suudaanta maxay tahay South oo madow Carabtiiba Ingiriiskiisa iyo gumaysta xoolaha ay u raaci jireen dhulkooda inta loogu tagay oo Carabtii ugu tagtay bay ku shaabuugayn jirtay xoolaha ay oran jirtay noo raac ma ogolaan jirin tacliin guryaha nooga shaqeeyo booysan noo noqday oran jireen dad gumaysi ku jiro gumaysi u dhiibay ayuu ahaa waa sida Soomaalida hadda Ogaadeniya gumaysi u dhiibay Ingiriiskiiba wuxuu u dhiibay Ethiopia
marka iyagoo kale ayaa rajale laakiinse isku nooc ma aha waqooyi Soomaali gumeystay ma jiro wala kale oo af kale oo haysataana ma jirto waa inagii isu yara caroonay boqolaal jeer baa la istira dadku way istiraan waana heshiiyaan marka waxaan يعني tusaya shacabka waqooyi galbeed iyo tog dheer degan waxaan u sheegayaa nimanka dhoofaya waxa laga yaabaa caruurahoodii iyo xaasaskoodii iyo familiyaashoodii inay dibadda u jiraan oo ku raaxaysanayaan idinkana shilalka la idin saarayo lacagta lagu dhoofayo marka ugu yaraato $100,000 baa laga yaabaa ama ka badan inay kharash gareynayaan maalin walbana Hargeysa iyo Burco iyo Berbera iyo Gabiiley iyo Togwa Jaale gaaja loogu dhintaa dhalinyarada Soomaaliyeed ay ku dhamaadaan badaha intay wax barteen meel ka waxay samayn kari lahaayeen inta ay ku dhoofayaan ku raaxaysanayaan inay ugu furaan shaqooyin ugu sameeyaan shaqo abuur ugu sameeyaan ku goobeeyaan ilaahay warho saddex boqolkaad adigu ku jeeble soo saar ama hababaan kaaga dhignay nolol bay ka dhigan lahaayeen inay markaa dadka wax ku siiyaan ayay ahayd laakiin samay ahayd inay ummadda ku jahwareeyaan oo ku lumiyaan oo jaaha kaga lumiyaan oo ay gaajo ku dilaan meeyana ilaahayna uu kula xisaabtanayaa ilaahay wuxuu cadaabaha u samaystay iyo jannooyinka kii ka soo baxa waajibaadkiisa wanaag sameeya inuu jannada ku abaal mariyo kii xumaanta sameeyana inuu cadaabta ku abaal waa lagula xisaabtamayaa shacabka masaakiinta ah ee la luminayo marka waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed ee aad luminaysaan ee aad gaajada ku dilaysaan dadka gaajoonayo aad mas'uulka ka tihiin ugu sameeya shaqo abuuris wax soo saar ugu sameeya Soomaaliyana waa mid baan leeyahay Soomaaliya karan waqooyi aanoo dhasho walaalahay koonfurta miyalay walaya ana wacad qaadayo calanka waligay sidee miyan la wari karaa haga waligi cado ma warayo badilkuya miya Soomaali weyn tanayste wajali kala Soomaaliya waa mid bay noqon doontaa wadankaygu waa bari waa galbeed waa koonfur waa waqooyi waa afarta bay jiraan dadkayga wada jiro dantooda wada socdee miyay guul waayayaan maya waqooyi aanoo dhasho walaalahay koonfur jecele miyalay walaya maya ana wacad qaadayo calanka waligay sidee miyan la wari karaa maya haga waligi cado ma warayo badilkuya miya Soomaali weyn tanayste wanjali kara maya wadankaygu waa waqooyi koonfur weeye wadankaygu waa galbeed bari weeye wadankaygu waa Hargeysa xamar weeye wadankaygu waa Kismaayo Burco weeye wadankaygu waa Midkura wadankaygu waa Midka wadankaygu waa Midkura